kulankan oo guddiga doorashooyinka heer federaal ay Muqdisho kula qaateen wakiillo ka socday naafada Soomaaliyeed ayaa wuxuu daarnaa sidii naafada Soomaaliyeed iyo heli lahayn xuquuqdooda dastuuriga ah ee ka qaybgalka siyaasadda. Kulanka oo soo qaban qaabiyay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Maxamed Xasan Ciro ku-xigeenkiisa iyo waliba xogayaha guddiga, waxaana lagu falanqeeyay sidii naafada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka dalka. qaar kamid ah wakiilada ka socday naafada Soomaaliyeed oo ka hadlay kulanka ayaa tilmaamay caqabadaha naafada Soomaaliyeed ka haysta ka qaybgalka siyaasadda. haweenka naafada sidaas si la mid ah way dhiban yihiin oo haweenka dhanaa wada dhiban oo naafo iyo kuwa aan naafo ahayn. haddana markii loo fiiriyo haweenka naafada mar walba waa kuwa nugul oo mar walba laba jeer ayaga ay dhibka u haystaa sababtoo ah iyadoo naafo ahayd iyadoo haween ahaan loo liidaayay oo maxaa la dhahaa haweenaad tahay wax ma qabsan kartid siyaasad ma qayb qaadan kartid la dhahay. haddana naafonimadii yaa u sii dheer laba arin ayaa marka dadka naafada caawi karto markii la rabo in bulsho siman la helo. laba arin kaliya ayaa muhiim ah. midda koowaad maxaa waaye meesha wax lagu qaybsanayo inaan qayb ka nahay waa golayaasha dawladda ee go'aanaadka gaaro inaan qayb ka nahay. waxaa kaloo sinaanta keeni kara waxa waaye in bulshadeena in aqoonsan tahay. hadda ka hor ayaa wiil habaraaway ah wuxuu u yimid aabihii intuu u soo dhawaaday saqbarka ayuu ku yiri aabbow ii dheh wax aniga wax weyn i taraya adigana wax aan kuu dhibayn maxay yihiin uu yiri aabbow haruubka habaraawe hala buuxiyay dhow mudane ra'iisul wasaare mudane madaxweynayaal guddiga doorashooyinka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaan ka codsanaynaa inay noo yiraahdaan wax inaga wax weyn taraya iyagana aan waxba u dhibaynin. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane Maxamed Xasan Ciro ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda loo dhan yahay iyo waliba kaalinta naafada Soomaaliyeed. bulshadu marka ay tahay bulsho wada nool oo hal wadan wada leh waxa ay ku salaysan tahay in ay bulshanimadeedu toosnaato waa in ay ka wada qayb qaadato hanaanka siyaasadda. barnaamijkeennan maantana taas ayaa u ah aasaas. saad ogtihiin nidaamkeena siyaasaddu wuxuu ku salaysan yahay 4.5 idinkuna 4.5 ayaad ka mid tihiin. waxyaabaha marka loo baahan yahay waxa weeye iyada oo la eegayo qoys kasta qaabka uu siyaasadda u qaybsamo ama uu u qaybsado in dadka baahiyaha gaarka ah qabaana ay kaalin ka qaadan karaan qaybta qoyskooda. waxaynu u taagannahay ee doodeennan maanta ay ku saabsan tahay waa baahiyaha iyo xanibaadaha arrintaas inaga hortaagan iyo sidee looga gudbi karaa. Said Umar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.